waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweeneyda hogaamisa Jarmalka annaga dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wa diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meel ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan laakiin waa u jeednaa Jarmalka markii saddexaad ay xukumaysaan soo markii afraad kan siyaasiga yiraahdaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur culimo badanna way radiyeen culimada muslimiinta kamida laakiin si gaaban hadaan uga jawaabo xadiidka horta Bukhari iyo Muslim baa wariyay cid isaga ka horeysay oo xadiidkaasi durtay ama daciifisayna ma jirto xadiidku ma sugan yahay mise ma sugna in wax ka og yahay u malayn maayo qaab cilmi ah oo xadiiska ama u daciifin karo ama u saxiixin karo maxaa yeelay xadiid Bukhari iyo Muslim ku yaalo culimadii ugu horeysay wax daciifiye aysan jirin kumuusan dhiiradeen hadduu cilmi xadiid wax ka garanayo waa mid labaade xadiidka macnihiisana muusan fahmin waxay leeyahay xadiidka nabigu markuu fasiray sallallahu alayhi wasallam aayad quraan ku fasiray oo salka u saaray وآيات القرآن في سورة البقرة كجرت آية المداينة كجرت بو النبي كتفسيري صلى الله عليه وسلم ومسألة أي تهي دمرك وحال لبا ليسود بدغي إني مid haday halmaanto takala xusuusiso xuquuqdii baa la ilaalinaya xuquuqdii yaa la ilaalinaya mid labaad way xadiidka muusan fahmin oo wuxuusan u fahmin ama intuu fahmay buu kas iska yeelyeel ayuu uga tilaabsaday xadiidku wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo ishhaad ee kama hadlayo shahaada kama hadlayo waxaan u jeedaa aayaddu waxay ka hadlaysaa nabigu xadiidka u celiyay ishhaad buu ka hadlaysaa shahaada kama hadlayo waxa kala duwan markhaati furka maxkamadda horteeda ah iyo xuquuq ay dadku ruuxu doonayo inuu yaani waxa way tawfiiqiyo xuquuqda iyada inuu markhaati u sameeyo oo xuquuqdii inayna lumin markhaatiga loo sameeyo iyo waxa kala duwan maxkamadda horteeda markhaatiga la furayo uu kala duwan yahay xadiidka iyo aayaddu waxay ka hadlayaan waa mas'alatul ishhaad ee shahaadada maxkamadda ma waa qodob kale isla xadiidka laftiisa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku cadeeyay dumarka markuu yiri naaqisaatu aqlin wa diin waxay yiraahdeen naqsiga aqliga naga ku jira muxuu yahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo aayadii quraanka ahayd soo ilaahay laba iskuma lamaanin say isu xusuusiyaan markay ta kala halmaanto waa halmaan baa laga hadlayaa naqsaanta diintanadu maxay tahay bay weydiiyeen wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam soo raggu markay cibaadaysanayaan ayagu salaad iyo soonka kama tagaan waa markay caadadu ku dhacdo taana waa naqsaanta diinta ma aha waajib ay ka tageen oo dambi ku leeyihiin ma aha laakiin macna wax weeye raggii muddada way cibaadaysanayaan ayagina cibaadadii way ka fadhiyaan salaadii iyo soonkii cibaadaadkii caadadu diidaysa waa mid saddexaad wax la yaab kale waxay tahay ninkaasi xadiidka inuu duro oo meel kaga dhaco oo inkiro wuxuu u sameeynayaa oo hadalkiisa ku cad in uu dumar helo siyaasadda ku taageera بمعنى وحوي حديث كاسي ما جيره سياسده واد غلي كرتانه اتاغيره واي ما سياسد iyo adduunyo iyo kursi la raadinayo ayaa diinta loo inkiraa waxaadiista nabiga loo inkiraa laakiin waxaan kula yaabin Soomaalida raggii dalkooda burburiyay oo dhiigooda daadiyay oo karaamadooda ku ciyaaray oo sharafkooda ku ciyaaray oo qixiyay oo dhib oo dhan u geystay ayay abaalgud uga dhigeen inay kursi saaraan oo madax ka dhigtaan haddana tii intay ka soo tagtay ayaa waxaa yimid diinta durideeda in kuraas laynaga raadsado shalay dal la burburiyay iyo dhiig la daadiyay iyo ummad la baabiyay baa kuraas lagu helo rag baa kuraas ku fuulay
maantana way ka soo gudubtay oo diintii oo la caayo oo lagu xadgudbo ayaa kuraas laynagaga raadinaya caqligeennii iyo diinteennii iyo dadnimadeennii ayaa marka la tijaabinayaa oo nin walba maalin kursi ku raadinaya marka uu xadiiska nabiga duraya sallallahu alayhi wasallam oo uu inkirayo dhanka kale wuxuu amaanayaa Angela Merkel buu amaanaya waxa kale wax kale ka baran karnaa haweeneyda hogaamisa Jarmalka laakiin waa u jeednaa Jarmalka ma markii saddexaad ay xukumaysaa soo markii afraad Angela Merkel habar gaalnimo ku weynaatay oo 70 jir ah oo inta gaalnimo kula ekaatay ayuu amaanaya dhanka kale meeshuu xadiidka nabiga durayo sallallahu alayhi wa alihi wasallam culimadii muslimiinta ayuu ku been abuuranaya oo uu leeyahay axaadiisii meelahan ka soo ururay wadaadadu sheegaan oo jeebkooda ka keeneen annaga dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wa diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan culimadiina waa ku been abuuranaya gaal 70 jirana waa amaanaya waxaan leeyahay gabdhaha muslimaadka ah qaabka in la idin la hadlo oo ninka iyo wax la mid ay qaabka idin la hadlaan aqligiina iyo garaadkiina ay fududaysi ku tahay asagu wuxuu isleeyahay dumarka wax kaga raadi laakiin aqligiina iyo maskaxdiina iyo dadnimadiina ku ciyaaraya asagiyo wax la mid ah markuu ku og yahay ruuxa inaad fahmi karto waxyaalaha qaarkood kugula soo degdegi maayo laakiin dumarkiiba wuxuu geeyay heer lagu ciyaari karo maskaxdooda lagu ciyaari karo been loo sheegi karo diintooda lagu falaadi karo kadibna la dhihi karo idoorta kuraas baan idinka dharjinayaa war waxba kuraas naga dharjinay diinta nabadgeli sooma baan in la yiraahdo war kuraastaada ma rabna iyo adduunyadaada toone adaro diinta noo nabadgeli in la yiraahdo u baahan yahay laakiin waxaan rajaynayaa gabdhaha muslimaadka ee Soomaaliyeed ee maanta jooga inta way ka wacyi roon yihiin way ka aqli roon yihiin way ka diin roon yihiin in diintooda la duro oo xadiiska nabigooda la inkiro oo culimadooda wax laga sheego oo la yiraahdo itaageera kursi baan ku helayaa ma sidaasan doqomo una ma ilaahay heerkaasaan doqomona maya abadan sidaas daraadeed isagiyo inta la midkaba abaalkoodu waxa weeyaan waxa ay axaadiista u ingareen oo gaalada u ammaananayaan oo kuraasta ay ku raadinayaan kow horta kuraasta inay waayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto kaasoo kale wax loo dhiitana ma aha wax kursi la siiyana ma aha wax ummad muslima hogaamin karana ma aha wax mas'uulana ma aha ummadaha uu ka hadlayay gaalada dhaqamadooda ilaaliyaan culture-kooda ilaaliyaan kaniisadooda ilaaliyaan baybalkooda ilaaliyaan waa ummadan uu amaanayo laakiin wax weeyaan adigu culture-na ma lihid diinna ma lihid dhaqan ma lihid ummad baa doonaysa marka inaad qaabkaasi wax kaga hesho sidaas daraadeed waxa noocaas oo kale ah quraanka kariimka baan la yaabay sida uu uga warramay ninkaas waxa la yiri wadaad buu ahaan jiray dadkii wax akhristay buu kamid ahaa waxaan la yaabay quraanka kariimka markuu ka warramayo ruuxa diinta wax ka fahmay ee haddana insilaakhay isagoo diinta garanaya ka dhaxbaxay wuu ka daran yahay ruuxa jaahilkeen diinta garanaya Allah wuxuu ku tilmaamay famathaluhu kamathali alkalb ya watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أي أوكلوا إلهي تصالة وقرنية روح انتو الدين تبري وقرنية هذا الدين تكدح سيبتي والدنيا كدورتي وكرسي أقح الشيء وحول أقح الشيء وسيدا أقدح بحي دينتي إلهي وحو كتلمامي إنو أي أوكليه ayga tilmaantiisu maxay tahay hadaad eridana wuu hiraan hiraya carabku la laadinaya
haddaad iska dayso uu nasan yahayna carabku laalaadina waa hirahiraya laba gooraba waa hirahiraya carabku ariyadu daadinaya ilaahay miisaal xun buu ka bixiyey sidaas daraaddeed waxa noocaas oo kale ah wacyiga ummadda muslimka ah gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed wacyigoodu waa ka sarreeya maanta in lagu siro in culimada la caayo axaadiista nabiga la inkiro kursina lagaga raadsado intaasi wacyigiinu waa ka sarreeya waana runtii wax way xaqiraad iyo yasid aqligiina iyo maskaxdiina lagu sameeyo waa maalintan Muqdisho tagay waxaan la kulmay gabdha iyo dumar badan oo waliba dumarka siyaasadda ku jira ama siyaasadda u ololeeya inay galaan oo Soomaali ah oo hooyooyin maamooyin u badan ayaan la kulanay aniga culimo kale waxa la yaabay wuxuu ahaa gabdhahaasi waxay raadinayaan waxay leeyihiin xuquuqdii dumarka ee siyaasadda Soomaaliya aan rabnaa in la siiyo kootadanadii ama qoondadanadii siyaasadda hana la siiyo culimada la fadhiisteen waxyaalaha isku raacay waxa kamid oo leeyihiin annaga wax shariicada iyo diinta ka hor imaanayo marna ma rabno waxay diintu noo okoshahay baan rabnaa waaba gabdhihii siyaasadda ku jiray kuwii kale iska badaa diintooda iyo dhaqankooda iyo culture-kooda iyo inay ilaashadaan yaa asal ah laakiin waxa weeye in diin xoor iyo diin tuur iyo xadiis inkir iyo diinto lagu tunto kuraas laga raadsado gabdhaha muslimaadka aqligaasi waa horu ahaa waxaan dhihi lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan dhihi lahaa tawbad baa ku furan tawbadkeen ilaahay u soo noqo tawbadaadana iclaami kana noqo khaladkaad gashay ilaahayna uga tawbadkeen tawbadu waa furan tahay inta aad nooshahay laakiin sidaas ummadna ku hogaamin maysid kursina ku heli maysid madaxweynena laga dhigan maayo ummadana diinteeda hadaad ku ciyaarto aakhira la'aan iyo adduun la'aan baa kugu dhici ilaahay u soo noqo